Assalaamu calaykum akhyaarta. Maanta waxaanu ka hadlaynaa sidee ayaad uga hortagi kartaa finanka ka soo baxa wejiga. Haddii aad doonayso inaad iska yarayso finanka ku yaalla wejigaaga ama aad ka hortagtid, waxaan kuu sheegayaa 5 tallaabo oo muhiim ah inaad samayso. Lambarka koowaad, ogow nooca jirkaaga. Wuxuu kaa saacidayaa inaad ogaatid nooca jirkaaga, inaad ogaatid jirkaaga waxa uu ku qabo allergiga ama waxyaabaha aan u fiicnayn maqaarka. Lambarka labaad, wejigaaga si fiican u dhaq si aad uga remove garayso ama aad uga saarto dhammaan wasakhda ama jeermiska ku dhashay wejigaaga. Haddii aadan dhaqin wejigaaga, waxaa ku dhalan kara jeermiskaasna wuxuu sababi karaa nabro ama finan ka soo baxa wejigaaga. Marka wejigaaga si fiican u dhaq si aad uga hortagto finanka ka soo baxa wejigaaga. Lambarka saddexaad, isku day inaad ka ilaaliso taabashada. Haddii aad taabato wejigaaga oo horey nabro u lahaa, ruuxantii finka weligaa kaama baxayo, weligaana wuu jirayaa. Taabashadaasna waxay dhalinaysaa jeermis cusub oo ku dhashay wejigaaga. Marka si aad u yarayso finanka wejigaaga ama aad uga hortagto, waxaa muhiim ah inaad taabashada ka yarayso. Lambarka afraad, inaad yarayso qoraxda ama limidka qoraxda inaad yarayso si uu u yaraado kicitaanka nabarka ama finka. Lambarka shanaad, isticmaal daawooyinka finka si uu kaaga yaraado finka ama aad uga hortagtid. Waxaa jira daawooyin badan ama kareeno badan oo loo isticmaalo finka inay ka hortagaan ama ay yareeyaan, marka kuwaas isticmaal. Lambarka lixaad, isticmaal kareemada ka ilaaliya jirka qaleylka si ay uga hortagaan finka ka soo baxa wejigaaga ama wejiga. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iidayso. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe noo saar. Mahadsanid.